maamadii u ballan qaaday inay gabadheeda qaliinkeeda lacagtiisii ay dhiibto. waxay tiri subaxii ii imow saan qaliinka lacagtiisii intay tahay ii keen, kadibna lacagtii ayaan ku siinaa. gabadhan yar ee gabadheeda yariista ee la qalayay wallaahi waa qof iska duruufaysanay ahayd. kadibna maamadii ayay subaxii aaday. subaxii subxaan allah markay guriga aaday ayay waxay aragtay dad ooynaya gurigoo la buuxo. ayadoo naxsan ayay waxay tiri maxaa meesha ka dhacay. markay gudaha usii gasho waxay aragtay meeshan la tacsii gudanay yaa dhintay. waxaa dhimatay maamadii u ballan qaaday gabadheedii qaliinka gabadheedii inay lacagtii oo dhan ka bixinayso. ummadda oynaysaba ayadaaba kasii oohin badneed oo kasii qaraacan badneed. maxaa yeelay subxaan allah maamadii oo maamo tayibad aheed qof fiican aheed ee marnuu oysay marnay qaliinka gabadheeda iyo duruufta haysato ayay marnuu oysay. qisadan bal bilowgeed ilaa dhammaadkeed aan dhegeysanay insha allah nakaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qisada aan idiin wado waxay tahay horta sadaqa. qofka markuu sadaqa jecel yahay siiba waalidiinta u badan jecel inay wax sadaqaystaan mar walbo. ilaahu waalidkeena iyo waalidiinta dhammaanbo ilaahu jannada ka wada waraabi insha allah. ilaahay taas ugu baryeena insha allah. dariiqoodii fiicnaayo dayibka ana ilaahay hana wada marsiiyo dhammaanteen. kuwii wax sadaqaystay ummadda muciintayna allah naga dhigo insha allah bismillaahi kariim. qisadan maanta waxay ku socotaa hooyo mise maamo tayibad ah. yacni qofka markuu sadaqa jecel yahay oo jecel yahay weliba siiba qofka dhibaataysan, dhibaatada haysto, murugada ku taagan, silacsan wax u qabto rabbigay ayaa isna u maciinaya. maamadan aad ay waxay ugu maciin jirta ummadda siiba gabar dhalinyaro ah oo haddana duruuf haysto waxba haysan ayaa aad u jecleed. mar walba imaan jirtay markay dhibkeeda u sheegato waxbay siin jirtay. maalinta dambeeta waxay tiri maamo maanta adan ku socdaa maxaa yeelay gabadheydii qaliin deg deg ah ayaa loo baahan yahay in la geliyo. lacagta qaliinkeena cadadeeda aad u badan tahay meelaan ka keenayna ma aqaan. maamadii waxay tiri ha oynin insha allah waa la helayaa. lacagta lagu qalaayo cadadeeda intay tahay insha allah berrito ii keen hadduu ilaahay yiraahdo. lacagti cadadeeda ay tahaybo anaa ka shubay gabadhaada qaliinkan insha allah way maraysaa. gabadhii farxad meelas dhigtay ka sugaysa. way soo baxday gurigeeda timid. habeenkii way seexatay. waaga markuu baryay ayadoo faraxsan xamaasada haysta yaabaysid ayay maamadii gurigeeda aaday. maamadii gurigeedii markay aaday albaabka jukaysa laga furay. waxay aragtay dad badan oo guriga dhooban wada oynayo tacsiiska gudanayo. waa yaabtoo qaracan. waxay tiri talow yaa dhintay maxaa way tacsiidan. markaas markay weydiisay tiri yaa dhintay aliri maamadii loo sheegay inay dhimatay. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. intay tiri kadibna ummadii oynaysaba ayadaa kasii qaracan badnay. waxay tiri marna waxaan u ooyey tiri oo u naxay tiri maamada naxariisteeda heerka ay gaarsiineed maamo cadiimay ahayd. marna waxaan u ooyey tiri duruufaheyga oo dhan ayadaa qabi jirtay oo dhibaatadeeda dhan haddaan u sheegto ay qaban jirtay. bizaadan markaanba ay usii daran tahay oo u baahnaya tiri in gabadheeda la qalo. igana ballan qaaday gabadheeda qaliinkeeda inay maraysa lacagtana shubayso. yaa kaa shubaaya idinkana meelaa ku tashteen rabbigeena meelaa ku tashtay subxaan allah. way iska soo baxday. waxay tiri reerkii tacsiidii ilmaheediyaa joogan ooynaya ma dhihi kartiin maamadiina waxay ii ballan qaaday qof duruuf yaa kaa yeelaa sheekadaas mase soconay baaba tacsiye maba xishoonaysa adi maamada marweyne xoolaheeda rabta maa lagu yiraahdaa. way iska baxday gurigeeda iska aaday. markay isbuuc kasoo wareegatay maamadii dhimashadeedii ee maalmalban qabriga ay tagto ayay maanta dambe wiilkeeda u timid. waxay tiri walaalkay waxaan rabaa inaan ku sheego arrin ah. aniga waxaan ahay gabar yaroo duruufaysan, gabar yarna haysato. gabadheedii qaliin deg deg ah ayay u baahan tahay. hooyadaa maamada khayr allah siiyo, jannatul firdaws allah ka waraabiyo, qabrigeeda allah waasiyo. waxay ii ballan qaaday in lacagta qaliinka iga shubayso. markaan imid gurigiina waxaan arkay maamadii oo dhimatay. marka
duruuftaasaa ay haysaaye haddii idinkaga dardaarmo oo waqtigii iska dhammaaday xataa mii saacidaysiin ilaahay khayr aan siisay maamada iga ballan qaad ballantii mii oofinaysiinoo idinka ma isiinaysiin tasaas fiishoo yiri adiga waa baalanta yiri naag fiyo matii naa ordo yiri xoolahay hooyadee meel usoo taagneed cuni jirta miya baxnaya albaabka kusoo buriyay subxaan allah gabadhi waa iska soo baxday ayadoo oynaysa maalmoba laakiin waxay tagtaa qabriga duqda qabrigeeda ayaa tagtaa ay ku dul uysaa dhibaatadeedii hamuunkeedii waxay qabto dhan u sheegataa sidii inay hor fadhida camal gabadheedii ayaa jirta maamadan oo dibadda ku nool waxay timid tacsiyada hooyadeed markay tacsiyadii dhammaatayna way laabatay iyadii ninkeeda ilmaheed dibaddeedii ku laabatay laakiin gabadhii ayaa arrin qabsatay gabadha arrinta qabsatana waxay tiri markaan seexdaba habeenkii hooyaday hortaagan oo murugaysan oo dhibaataysan oo marna waxay tiri indhaheeda ilmo ka daadanayaan kow maalinta kuwa u timid maalinta labaad isbuucadii hooyadeed imaanaysa maalinta ninkeeda waxay ku tiri maxay ahayd toole xaajo aniga hooyaday habeen walbo ayaa rii igu timaadaa ayadoo murugaysan oo dhibaataysan marka waxay tahay ma aqaan inaan baxo qalbigeyga ma fadhiyo oon baxo qabriga hooyaday aado ayaan jeclaystay markaas wuxuu yiri hadda duruufteen noo masaamay hadda dhibaan kasoo noqon tacsiyada hooyada ee quraan u aqri quraankay u aqrisay gabadhii waa iska joogtay maalin dambe waxay go-aan gaartay sheekh joogo muslim maalba ku nool inay u tagto ee tiraahdo dhibaatadaas sheekha masaajidka joogay u tagtay waa wadanka ay ku nooshahay waxay tiri sheekhow dhibaatadaas ay haysato hooyaday haddaa soo duugay tacsiyadeed waa jir laakiin tiri habeen walba hooyaday ree waxay igu timaada ayadoo murugaysan oo indhaheeda biyo ku fadhiyaan wuxuu yiri hooyadaa amay sadaqada ay dhiiban jirtay sadaqa ma jecleed haa aad sadaqa jecleed sadaqadii dhiiban jirtay waaye sadaqa u bixi sadaqaysiis dadkii dhibaataysnay sadaqa usoo wadaajisay waxay tiri alxamdulilah hooyadaa sadaqooyinka ay dhiibi jirtay waa kala wareegtay waan dhiibtay bal cawada martaax ku seexabo waa seexatay sidii haddana hooyadeed markiiba haddaba kasii darantahay waa soo kacay tiri alili gabadhii salaadan dukaday ilaaha unu baryay habeenka labaad haddana sidoo kale waa seexdo ay hortaagantahay muddo isbuuc kale odageed wuxuu ku tiraan saan tale ima noqoto wuxuu yiri mar kale insha allah aadaynaa bilooyin kadib qabrigeeda aadaynaa wadanka kuma noqon karnee anigu shaqooyinkayga meeshaan ku xirnay maxaa xal ah waxay tiri aniga waa baxaya wuxuu yiri waayi ilmaana ka haynay maadaama aniga meeshaan shaqo ii taalaan bixi karin iska baxu yiri way soo baxday gabadha marka wadankii ku soo noqotay wadankoodii ay ku soo noqotay markay soo noqotay ayay waxay ka bilowday markay diyaaradda kasoo degtay aliri meel kale ma aysan aadin alaabta ay wada gurigeeda markay geysay si u socotay qabriga hooyadeed qabrigii hooyadeed markay usii dhowday ayay waxay aragtay qof dumar u oynayo oo sii dhawaataa qabrigii qofkii dumarka ooyntiisa oo soo dhawaadaa qofka dumarka uu oyna wuuna hadlaya qabrigii hooyadeed markay dul timid waxay timid gabar yar oo dhalinyaro ah oo qabrigii dul fadhiyo ku dul oynayo oo dhibkeedii hamuunkeedii caloosheeda wuxuu ku jira qalbiga ee u sheeganaya markaas inta galabka ka taabatay tir salaamu calaykum calaykum salaam abaaye maxaa kugu dhacay oo qabriga hooyadii ugu dul ooynaysaa yaa ahayd adiga waxay tiri aniga waxaan ahay tiri maamadan dadka ay quudin jirtay qof ka mid ayaan ahay dadkay sadaqada sii jirtay qof ka mid ayaan ahay waxay tiri aniga maamadu waxay tiri maalmo meesha waxaan u fadhiyaa tiri waa u duceeyaa dhibaatadeedan u sheegto sababto qof kale u sheegi karo dhibkeyga ma lahani tiri markaas waxay tiri bal maxay tahay iiga sheekay waa u fadhiisatay markaas waxay tiri hooyadaa waxay tiri horta waa i gacan qabatay ilaahay khayr ha sii jannatul firdaws ilaa ugu baryaa laakiin waxay tiri dhibaatadeeda ugu dambeysa waxay ahayd tiri gabadheedu qaliin degdeg lagu sheegay waxayna dhahday tiri qaliinka oo dhan lacagtiisa anaa bixinaa maamadiina waaga doo bariyay tiri aan u tageen way dhimatay walaalka ayaan u tagay tiri waa usoo sheegay tiri wuxuu dhahay tiri albaabka iga soo bixiyay beenley tahay kadaa ibley tuuga ahaa tahay hooyaday xooleed dhici jirta iga baxu jiri waxay tiri waxaan sameeyo ma aqaan gabadheedina waxay tiri waa sii zaa'idaysaa dhakhtarku wuxuu leeyahay gacantaada gabadhaada ku dhimanaysaa haddaan qaliinkaada marsiin wax aan sameeyo aan garal ah marka waxay tiri maamada waxay tiri anigana maamaday waayo tiri dhib la-aan ay dhashay oo maalin walba qalbigeyga waxay ku jira caloosheeda qof kale uma sheegi jiro iyadoo u sheegi jiro marka that's why aan intuu hor fadhiyaa aan ugu sheegaa dhibkeeda gabadhi waxay tiri kawarnay tiri haddii hooyaday waxay tiri waxay ballan qaaday tiri gabadhaada qaliinkeeda haddaan aniga aan qaliinkii ee ballan qaada hooyaday oofiyo balka warnay tiri farxad meelay galbad ma runtahay ma runay kaa tahay haddaanba ku raacay tiri ma bixi gabadhaada wadayna isbitaalkan tegayna lacagtaan shuba gabadhaada qaliinka insha allah waa maraysaa way israaceen isla markii gabadhii soo waday isbitaalkii tegay lacagtii shubtay waa gabadhii maamada dhashay
lacagtii shubtay gabadhii qaliinka xataa waxay ilaa qaliinka kasoo baxday gabadhaada ee koronaad xataa ma baxay waa joogahayd muddo bil ah iyada u fadhiday meesha gabadha qaliinkaa la marsiiyey way soo fiicnaatay alxamdulilah waxay siisay lacag waxay tiri mar walba waqti allaal waqtiaad ii baahan tahay waa isoo wici kartaa nabarkeyga waa kana wax allaal waxaad u baahan tahay insha allah intaan awoodo oo tabarteeda haddaan bahay kaamaha garanaan ku siinaa waxay tiri hooyadeen saa qabrigeed tegi jirto ilaahay kheyr ku siiye si wax walba u tag ballan waa ay tiri taas sababta waxay tiri maamada idinku waa idin dhashay tiri oo waa idin korsta laakiin ani waxay tiri dhib la-aanay bay dhashay tiri dhib la-aan ayay dhashay tiri maxaa yeelay tiri hooyaday dhimatay tiri سيدي إيه حنانين سيتري قف إيه حنانين هو ذي مركب دمت ما جرت تري قبليدين وأقون أو ميلان وشيخ طب ملهاني تري إذا وشيخ يجري لبكيجن إذا يعني حقبتري جرتي تري الحمد لله مرك إلهي مركلو رئيسي مرك والدك إن صدقته ديفن جري ومدو قود جري إن لقوديو وحكى في عن ملهان صبته قبرك حتى والدك عدو قبرك قال حتى وكنا سنة وضدكو قود جري ضدكو حسي جري وسيدو عينا يعني صدقة عيار معه والله مركا مانتا إن شاء الله قصدان تاسوكو اكتهاي إن شاء الله قصدان قصة لمد حين كي تقاي عافيمات باش برواقو إنكستو لبدا مامود مسو قلنا قصة محايا له إنرجي إيو كعسان إنرجي إيو كعسيهن وحواي إلرجي إنديا كعنعنا سنكا كعنعنا ميلا كعنعنا دونتا كعنعنايسو حاو قدرن بمدح حتى وكحنونا حتى داوزي قالت حتى داوزي حتى مركا قاركو حكومة تريسو الحمد لله المشي الحال مركا تصدرتيد أيان حوغا أمقناي هذا لكن الحمد لله وحامل يسا حوغا رب كلمت إني إيقادقين الحمد لله شكرا بالعالمين إلهي ما هذا إسكالة حاين كي تقاي عافمات عمر داير باش برواقو دمانتين إن شاء الله وانا كي mahad celinaya subscribe-ka mar walbo dadka cusub ii saaraan daawashada ay daawatiin qisadeeda la socotiin dhegeysatiin masha Allah tabaaraka Allah dadka cusub oo noo imaanaya waxaan ilaahay gacmo furan kusoo dhawaada gambaleelka furta insha Allah qis walba si idin kugu soo gaarto insha Allah waxaan kaga tagay bash caafimaad barwaaqo assalaamu calaykum